waxaa maanta xaflad lagu qabtay markaska Alibana Education Center waxayna u ahayd maalin farxad gooniya u leh markaska maadaama arday fara badan ay dhameeyeen Quraanka Kariimka. Qaar ka mid ah ardayda Quraanka dhameysay ayaa xafladda ku daahfuray ayado Quraan iyo khudbado waxayna soo jiiteen waalidiinta ay ilmahooda qalin jabinayeen markaska Alibana. A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله كم أعطى من النعم وكم منح من الخير الكثير. الحمد لله عمت نعمه وانصرفت نقمه وتضاعف كرمه. الحمد لله على تمام المنة والحمد لله بالكتاب والسنة. الحمد لله على نعمة الإسلام تواتر الإنعام. الحمد لله مولى الجميل واهب العطاء الجزيل أجود من أعطى وأصدق من أوفى. dhanka kale macalinka gacanta ku haya ayaa ugu horeyntii u mahad celiyay waalidiintii iyo matasharafkii ka soo qayb galay asagoo xusay in markaska Alibana Education Center uu heegan ugu jiro sidoo uu soo saari lahaa arday dhinac walba ka dhameystiran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan qiimaha badan ee u qabanay ardayda Quraanka Kariimka xifdisay. xafladan hadafka aan ka lahayn wuxuu ahaa inaan ku sharafno ku maamusno ilmaha Quraanka Kariimka xifdiyeen. markaska Alibana Educational Center hadafkiisu wuxuu yahay inuu soo saaro arday xifdisan Quraanka Kariimka iyo arday maadiga maxaan ku iraahdaa aad uga dhisan sida hadda arkayseen ardayda waxay soo bandhigeen maadiga waxay ka akhristeen oo si aad u qiimo badan waliba u quruxsan ay soo bandhigeen. waxay kaloo ardayda soo bandhigeen kitaabta diiniga ay xifdsan yihiin sida maxaan ku iraahdaa kitaabka urjuuzada tuhfatul atfal siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo tawxiidka iyo wixii lamid ah. markaska waa markas mutakaamil ah aan ugu talagalnay ilmaha in labada dhinacba ay maxaan ku iraahdaa ka faa'iideystaan maadiga iyo diiniga. ardayda goonida ah ee iskuulaadka akhristaan subaxii intay iskuul aadaan maalinkii oo dhan iskuulka ku maqan waxaan u haynaa barnaamij aad u qiimo badan oo ugu talagalnay in lagu xifdisiyo Quraanka Kariimka barnaamijkaas oo ah ilaa iyo habeenkii 2 saac iyo bar habeenimo inay gaarayaan. ardayda Quraanka kaliya dhigtaan ee markaska 12 subaxnimo ilaa iyo 12 maqribnimo joogaana inay isku manhaj noqdaan oo diinta kitaabta la xifdinayo iyo Quraanka Kariimka ay isku xifdiyaan shahaadadana maalin insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo maalinka qalin jabintooda aan siinaa haduu Ilaahay yiraahdo. wajazaakumullahu khairan. aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa idaacada nasoo booqatay khayr Allah siiyo. jazaakumullahu khairan. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. xafladan loo qabtay ilmaha dhameeyay Quraanka ayaa jawi wanaagsan ku soo dhamaatay. waxaa maanta